kulankan isugu jira tababarka iyo qiimeynta ee u socda hay'adaha amniga ee deegaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka ahna sihayaha xilka madaxweynaha mudane Mustafa Maxamed Umar madaxa xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya iyo hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka mudane Mubarak waxaana kulankan isugu jiray qiimeynta iyo tababarka ee loo qabtay saraakiisha ciidanka liyu booliska saraakiisha ciidanka booliska iyo saraakiisha asluubta ee deegaanka loogu talagalay in kor lagu qaado garaadka aqooneed ee saraakiisha hay'adaha amniga ee deegaanka si ay u sii xoojiyaan nabadgelyada iyo dhowrista xuquuqda aadamaha waxaana halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka ahna sihayaha xilka madaxweynaha mudane Mustafa Maxamed Umar oo tilmaamay in hay'adaha amniga ee deegaanku ay yihiin ciidan shacab isla markaana loo baahan yahay in mar walba ay garab siiyaan shacabkooda iyagoo dhowraya xuquuqda aadamaha isla markaana sugaya nafta iyo hantida shacabkooga qofka insaanka ah in lagu xadgudbo sharaftiisa iyo karaamadiisa kuwa hadda aan ka cabanayno waxaas lagu sameeyay leeyahay hadda meesha fadhiyaan in la darbaaxo in candhuuf lagu tufo in la garaaco in la jidilo midna xaq lagu malaha xitaa kan aad ka cabanayso dambiilaha haddii aad ku samayso arrinta waa la kala horreysay isku baad noqonaysaa isaguna maalinkooda kugu sameeyey adiguna maanta aad ku samaysay marka in la ihaaniyo xitaa magacyadooda la sheesheego ma fiicna haddii la qiimeynayo meesha lagu qiimeynayo ay tegi doontaa in la ceebeeyo ma aha qofka insaanka bini'aadamkii qof walba meesha fadhiya ixtiraam buu rabaa in la ixtiraamuu rabaa in la is ixtiraamo oo xitaa qofka hadduu dembi galo sida looga jarayaa si ixtiraam ku jiro ay noqoto weeyaan insaan bini'aadam oo la yareeyo oo la caayo oo la ceebeeyo wax ka xun ma jiro adduunka taa inaan iska ilaalinaa muhiima shaqa idinka saaran mas-uuliyad ciidan iyo mas-uuliyad wadanimo idinka saaran wixii aan ku khaldannahay ee aad u aragtaan inaan dana shisheeye ugu adeegayna waad naga qabanaysaan si xor u hadla marka la leeyahay baarlamaanka laga bilaabo xildhibaan baa halkan jooga waxaan rabnaa wixii aan ku khaldannahay eed u aragtaan dan Soomaaliyeed ah inaad noo sheegtaan aynu garanno wixii saxdaana inoo ku tagno laakiin in maaragtay propaganda shisheeye oo weliba qofkii shalay ku guuleystay ee qeyrka ka reebay uu ku soo alifay aad u adeegto oo lagu isticmaalo waa ceeb weeyaan aad bay nagu xuntahay haddii xitaa aad cadhoonaysaan cadho idinka ah waa inay noqotaa cadho abaabulan la soo amahday inay noqoto maaha waa lagu soo dhex mariyey oo qof kale leeyahay oo aad wax xitaa u cadhoonaysa aadan garanayn taasaan idinkaga dardaarmayaa salaadii markay gaadhaan inaad tukataan ha iloobina waxaa kaloo tilmaamay madaxweynuhu in hay'adaha amniga ee deegaanku ay guulo ballaadhan ka soo hooyeen sugidda amniga deegaanka isagoo sidoo kalena tilmaamay in hay'adaha amniga ee deegaanka la siin doono tababarro gaagaaban iyo kuwa dhaadheer oo isugu jira dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisaba waxaana mudane Mustafa Maxamed Umar madaxweyne ku-xigeenka ahna sihayaha xilka madaxweynuhu uu ku booriyey hay'adaha amniga deegaanka inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ka dhaxaysa ciidanka difaaca qaranka isagoo sidoo kalena tilmaamay in hay'adaha amniga deegaanka looga baahan yahay inay la jaan qaadaan isbeddelka guud ee ka dhacay dalka iyo deegaanka waxaana uu tilmaamay in hay'adaha amniga deegaanku ay dhowraan sharafta iyo cisiga bulshadooda nolosha caadiga bini'aadamku marka uu 2 sano 3 sano 4 sano joogo meel kasta magaalo kasta way kortaa dabiic bay u kortaa haddaad Soomaaliya tagtaan hadda oo aan ka shaqeynay in dowladda dhawaa magaalooyin waxaa jira berigii dowladdu dhisnayd baaba'sanaa oo hadda magaalooyin waaweyn shacabka magaalooyin ku nool way kordhaan jijiga maanta waxaa ku nool 700 kun baa ku nool 10 sano kadib ama anigu aan shaqeeyo ama yaana shaqeynin 10 sano kadib waxaa ku noolaan 1.5 milyan baa ku noolaan doonta caasimadda noqon doonta basas bay yeelan doonta nolol shabila aadamku iyo baahidu waxay keento horumar jira oo aan ku xidhnayn dawlad waxaa kaloo jira dawlad waxay soo kordhiso waxa ay dawladdu soo kordhiso laftigeeda qiil uma noqon karaan inay dawladdu tacadiyo ku samayso shacabka hoolkan mid 3 tibaarkii koob ma dhisi karnaa hadda anigu lacagta kuma mana sheegan karo hool baan dhisay sababta hoolka lacag anu aan leeyahay kamaan dhisay miisaaniyad budget oo dawladeed oo hadduu Axmed joogan uu saxi lahaa haddaan anu joogan aan saxay weeyaan qaabka loo dhigay horumarka lafsigiisu ee la shakhsiyeeyo waa khalad buu shakhsi ma laha lacagta wax lagu dhisayo ceelasha haddii ay ka badin weydo lacagtaas la sheegayo lix jibaarkeed lacaga waa lagu cunayay mashaariic la fulinayo guriyaha hadda aan deganahay iyo hoolashan lacagta ku baxay markaan eegnay qasriyada ku yaala imaaraadka inay dhisaan baahay marka run laga hadlo lacagta la leeyahay way ku baxday hoolashan aan sound system ka lahay waxa ay dhisi lahayd qasriyada imaaraadka iyo qadar iyo aan ku soo aragnay kale ay dhisi lahayd lacag ku baxday marka minna xaq uma laha inuu yiraahdo maadaama ceel qoday 20 qof hadaan dilo waxba dhibaato ma laha ceelka waxa ka qiimo badan nafta bini'aadamka
horumarka macnihiisu jidad iyo guryo iyo midna maaha horumarku waa bini aadamka muxuu tarayaa haddii hoolkan uu dhisan yahay oo dhexdiisa dadka lagu cadaabayo waxaa loo dhisay wuxuu ahaa in dadku dhaxanta ka galaan muraadkooda ku fashiyaan baa loo dhisay marka horumarku ma aha infrastructure-ka iskuulaadka ma aha waa bini aadamka human development waxa la yidhaha waa bini aadamka inuu koro haddaa weligii askari ahaanayso adigu halkaa ka fadhiya oo saa uun ahaanayso noloshaada ilaa hadda intaad dhimanayso wax horumar samaysa ma jirto waxba kaama gelin magaalada haddii tareenno laga sameeyo adi shakhsiyan wax ku kordhay ma jiro ilmahaaga wax u kordhay ma jiro marka horumarku waa tadawurka iyo isbeddelka shakhsiga ku yimaada weeyaan ee sanad walba uu hiigsanayo waa inaad iskuulaad distansiya bilowdaan waa inaad waxbarataan noloshiinu rugni diiniya ma aha inaad weligin askar ahaataan waa inaad hawaysataan in askarta ka baxdaan 5 sano askari ahaw sanadka 6aad waxaan shahaadasaan qaatay xabisada haligu wareejiyo dheh ku kaloo adiga naadarka ama walaalka oo bannaanka jooga oo aan chance u helin fursadda aad u heshay isagana ha soo galo meesha marka qaabka horumarka aan u macnaysanaynay 10 sano ugu khaldanaa aan aragtideeda horumarka lacagtan miisaaniyadda ee gobolka ku baxday ama dadka lagu daadaadinayay ama laaluus lagu bixinayay ama askarihii jannadii la siinayay waxay dhisi kari lahayd 20 noocan oo kala jaamacaday dhisi kari lahayd saacaddan taaganahayna caruuraheenna meelahaas kuwa wax u bartaan iskuul caadi oo tegi karaan ma jiro halkan iskuul caadiya oo fiican oo ardayda ciyaalka yar ay tegi karaan quman ma hayno oo tayaleed oo ilmuhu wax noqonayo jaamacadaha in leenahay badankooda waa waxba kama jiraan shahaadooyinkooda kuwa qaata kuma aamini kartid inay shaqo qabtaan sababta waxba lama bari shahaadan balisa marka horumarka laftigiisa qaabkii loo dhigay qaabkii propagandada badan ee ku dhex jirtay inaan maaragtay dib u eegno aniga inaad maqashaan qasab maaha oo tiraa madaxweynihii baa yidhi horumarnimo jirin oo jaamacaduhu ay xun yihiin kuwa ka soo baxay waraysta kuwa dhigta waraysta dadka waraysta laftigiin waad ogaanaysaan waxaad ogaanaysaan yuu noqonaya dhankooda qaar ka mida saraakiisha ciidanka gaarka ah ee booliska deegaanka iyo saraakiisha booliska iyo kuwa asluubta ayaa iyagoo halkaasi ka soo jeediyey fikro kala duwan iyagoo tilmaamay in diyaar ay u yihiin la jaanqaadidda isbeddelka guud ee ka dhacay dalka iyo deegaanka sidoo kalena ay sii adkaynayaan u adeegidda bulshadooda sarraynta sharciga dastuurka dalka iyo deegaankaba mudana madaxweyne mataqaanaa annaga haddaan ciidanka gaarka nahay ama hay-adaha nabadgelyada kala jiirsan haddaan nahay hoostaan ka xariiqnay mataqaanaa inaan mataqaanaa shaqada mataqaanaa naloogu talagala aan qabanno oo say taa uga soo baxno hadda waxaan aad u qoomamaysanahay mataqaanaa wixii naga khaldamay baan annago aad 100% hadda u qoomamaysanahay waayo waxaan ku soo tabcaynay baa mataqaanaa 2 saacadood gudaheeda nagaga baaba'ay taasaan mataqaanaa aad 100% maanta annagoo aan uga qoomamaysanahay nin aan maanta ka qoomamaysnayn arrintaa ma jirto dee waxaan u soo dhimanaynay ee u soo dhaawacmaynay ayaa mataqaanaa 2 saacadood gudahooda ku baaba'ay taas mataqaanaa si ayna hadgad u dhicin wixii naga khaldamayna waan saxaynaa hadda dib dambena uma dhici doonto askarigu kuma salaysna qabiil waa xaaraan wuxuu ku dhaartay dastuurka dalka iyo dadka inuu ilaaliyo in askari lagu dhibaateeyo reer hebel baa tahay waa la soo martay dee waa ka dhacay deegaanka dadka dhibaataysan shacabka dhisa ma ahayn hay-adaha nabadgelyada gudahooda dhibaatooyin badan baa ka jiray waxyaalihii soo khaldamay xagga xorriyatul qowlka iyo mataqaanaa waxa weeye iyo dhanka xuquuqul aadamiga labadaaba dhaliilo waaweyn baa ka jiray annaga macnaha waxay mataqaanaa dee xukuumaddii hore haddaan ahayn facebook iyo waxaa mataqaanaa haddina laga caayo waanu nabcaan jirray waanu mataqaanaa ka gudan jirray adna waxaa tiri mataqaanaa waxa weeye dee in la istacaayeeyo oo waxaas waxa weeye mataqaanaa waxa maabaa tiri dhibaatooyinta ka jirtana intaan bay ahayd mudana madaxweyne 100% aad baan kugu faraxsannahay isbeddelkan cusub ee mataqaanaa dalka Itoobiya ka socdo waan la jaan qaadaynaa wax sharciga iyo mataqaanaa dastuurka ayaan ku shaqaynaynaa taasaan ballan qaadaynaa annaga mudana madaxweyne isbeddelka iyo nidaamka waxa weeye heer federaal ka yimid waxaan diidannahay ma aha marna waxaan diidi karra ma aha dee annagu asar baan nahay awaamiir baan qaadanaynay dee askariguna mataqaanaa waxa weeye nidaamkiisu
waa inuu awaamiir qaato iyadoo waxaan ugu amarto ma qaadan doonaa haddii la idhaahdo madaxweyne ku-xigeenka ahna sihayaha xilka madaxweynaha ayaa xilligii nasashada ee shirka kadib dhex gooshay saraakiisha hay-adaha amniga iyadoo madaxweynaha iyo saraakiishuna ay isqacan qaadayeen islamarkaana isxog waraysanayeen kulankan isugu jira tababarka iyo qiimaynta ee u socda hay-adaha amniga ayaa sii socon doona maalmaha soo socda.